kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada Nawaal Qurux channel aad nagala socotaan Nawaal Qurux channel waxaa marti ugu amaanta Shukri Sharaf mawduuceena wuxuu ku saabsan yahay guurka oo interesting la isku wato Shukri soo dhawaa Nawaal Qurux channel waan salaamayaa teamkaaga ama asxaabta ku xiran channelkeena waan ku mahadsan tahay waqtigiina qaaliga iyo barnaamijkan aan kala qayb galayo runtii sidaan ognahay guurka aad sheegtay interestedka uu ku badan yahay qurbaha amaba meelo kala duwan oo caalamka ah biyo kala duwan ayaa nala qaba badanaa waxaa jirta baahiyo dadka ku sababa in sharciyada la isku qaato kale in qofka dhaqaalahayo kale uu ma aragtay hamiyo oo laakiin baahidii nololeed iyo arrimihii la isku guursaday runtii ay ka weynaato interestedka ama baahida gaarka oo qofka ku guursaday waana arrin aan fiicnayn siday aniga ila tahay sababtoo ah qof dhan nolosha aad la qaybsanaysid inaad interested amaba baahi gaara loo guursado baahidu markay dhammaato berri maxaa la samaynayaa waxaa xiga waxay tahay maxaa ka imaan karo baahidii markay dhammaato ama lacagtii la helo amaba lagugu dangaaro ma iridaa laga baxaya sida qofkii liidhanaanta miyaa qofka la iska tuuraya ani taasi ma fahmin mana aha wax bannaan diiniyan sida aan qabo amaba siday culummadu sheegtay waa tahay marka guurkaasi ma kula tahay guur oo jacayl ku salaysan iyo jacayl wax yar oo jacaylanka ma dhex imaan kartaa qofkii ileen qofkani dan buu wataay runtii meeshaasi jacayl kama muuqdo waxaa ka muuqda uun baahi yaroo gaara laga yaabee baahida inay bilo qaadato amaba sanado laga yaabee inuu ilaahay intuu u naxariisto dadka danta gaarka isku watay qoysas yaryar oo ilaahay intuu isku barakeeyo guurka ileen nawaaley waa mawadatan wa raxma ma ogtahay inuu ilaahay mawaddo dhex dhigo inuu raxmad dhex dhigo inuu ilaahay ubad dhexdoodii ka beero tagogoodii taasi waa wax dhici kara laakiin guurka tanestiga ah oo interestiga ku dhisan dhibkiisuu leeyahay caqabado fara badan baa lagala kulmaa waayo kalsooni kuma dhismin gurigaasi justi waxaa loo galay amaba guurkaasi uu ma aragtay ku dhismayba waxay ahayd baahi yaroo gaara iyo dan yaroo markaasi timid oo la iska dhex arkay badanaana waxaan aaminsanahay inay ragga ka timaado sax marka waxyaabo kale oo ayadana dan guurka danta interestingka ah qurbada ayaamahan dambe kusoo badanta oo ayadana ah dumarka dumar waxaad arkaysaa dhahaya aniga ma rabo ma doonayo caruurteeda nin inuga soo dhex galo ma doonayo in oo maxaan ku dhahdaaye mas-uulka aan qaado oo yacni mas-uulnimadii ninkii wixooshii dhan bayba naceenba gos ciyaalkoodii waxbaa ka dayacmaya marka waxaa soo badatay guur qurbaya amaan kusoo badatay warniyo waan ku wada kulunno hoteelada waana guur qarsooni ah guurkaasi kale maxay diinta ka qabtaa maxaa yacni caruurta oo gabadhaasi haysata maxay yani dhibaatada gaarsiin karta maxay runtii side effect badan ayaa ka dhalan kara inkastoo ay su-aashaasi sida caamka markaan ugu jawaabno ay culummadu ay ku fiican tahay inay ka jawaabaan laakiin sida noo muuqata guurka qarsoodiga dhibkiisa badan waayo dhibkii kugu dhaca ceedna kulama oga balse dheefta uunbaa naftaada farxad gelinaysa sida aan qabno laga yaabee ninka inuu reer leeyahay reerkiisa dib ku ogaadaan berina maxaa la yidhaahdaa dee caawdaba laguu jaro ilaa naag daaqadii kasoo gashay baa tahay boogtahay oo aan la ogeyn marka reere islaameed baa guur dhisan baad ka kaluumaysanaysaa in waxaa dhici kartaa madaxaagii lagu kala tago wax badan baa dhici kara marka haddii aad u bareertay in lagula guursado anigu waxaan baa qabaa inaad dee bannaanka lagu keeno xalaal maali cad baa la quutaa haddaan lagu keenaynin dee qofkaa iska nabadgeli oo noloshiisa inaad daaqadda kasoo geshid dee ma qurux badno waa sax maxay guur kaleto waxaa jira iyadana gabdho yaryar oo niman waaweyn qurbaha ka imaaday qoorta loo gelinaya waalidkii oo baahi yani leedahay maamadii aniga gabadhani ma raba inay wiil yaray guursato wiilasha yaryarkee geyaankeeda agaarkooda joogo ee gaajo ugala cararayso maxay kula tahay kaas amaba gabadha intuu guursado bil iyo 2 bil kadib usoo furo oo gabadhii iyo reerkiisii iskeeni waayaan gabadhii iyadoo bil iyo 2 bil la qabo oo yar oo 15 iyo 16 ay noqoto gabar oo markaasi carmala
amaba uur lagu soo furo amaba ilmo lagu soo furo ilmahaasina xataa la yiraahdo ilmahaasi ninkaas u dhig ilmihiisa ma rabno maadaama gabadhoodii xumeeyey reerkii gabadhoodii baa markaa la weyn gabadhii maskiinta ahayd waalid bay noqotay ilmaheedii kama maaranto noloshii isku xakiranto marka caqabadahaasi runtii guurka degdeg ah aan laga fiirsan gabdhaha yaryar ee guurka ma aragtay waalidka u gelinayaan baahida ay interestka yar iyo qadaadiicda doolarka ay ka fiirsanayaan dhibaatooyin badan buu dhigay dadka qurbaha ka tagaya ee lacagaha la rooraya xoogaa yara ee naftoodii ka qabteenay ma aragtay ismaras yar ka cuneen qurbaha ay kula sii cararayaan iska ilaali dad badan oo iska xanuunsan oo mentala iska jira xataa mogtahay caafimaad xanuunkuu qabaan kee war uma hayso lacagtuun bay fiirin dani waa seeto wax la yiraahda ayaa guriga lagu dhisayaa reerku waxay isleeyihiin talow gabadhan biri maydii la dhoofiyaa dee iyagana baahi kale baa reerkii iska haysatay mogtahay yaa waa sax marka waxaad leedahay wiilasha yaryarkee ka agdhadhawee gabadha fahmi karto ay jacaylka u hayso ha lagu taakuleeyo ha loo dhiso gayaankeeday ku faraxsan tahay guriga markuu farxaddu ku dhisan yahay gabadha iyo wiilka yaryarne dee ha loo caqli celiyo oo markay intayna isguursan ee nolosha ma aragtay micnaheeda iyo mas-uuliyadda guurka ha la baro oo ha looga sheekeyo waayo qofkaasoona mas-uuliyadda guurka aqoon bo xiise yar iyo laablakac iyo jacayl yaro oo shalay maanta ah ma aragtay guri lagu dhisayo gurigaasi nima degaayo waa sax marka naagaha waaweyn ee ayadana sidaa camal ah ka taga qurbaha tagayo wadamadii masaakiinta ee yani dadka iska danyara sharciga lagu gaadayo wiilal yaryar European passport ha marka kaasta waa sidaa camal wiilasha waxaan leenahay ayagana iska guursada gabdhiha gayaanka hadda waxaan arkayna sheekada adaa ku sitay wadanka turkiga ka dhacay gabar baa iska ma aqaano ejkeeda anaga mashiinka dadka ma aragtay ejka sahmiye ma nihin laakiin gabadhi dadku qaar waxay u xukuminayeen inay wiilka ka weyn tahay passport sidid ya waar marka waxyaabahaas camal social media aad baa ma aragta loogu habsaamay horta ilaahay isku barakeeyo reerkaas dadka noloshooda waxaa fiican in loo daayo la faragelin farxadda la yiraahdo hambali on loogu daro iyo duco ilaahay hadda wiil iyo caani gabar kala siiya anagu leenahay age number soo sidaa maaha nawaab age waa number laakiin qof walba waxaa u fiican aan waxaan qabaa qafkii kugu gayaana ud fahmi kartid yani meesha ka dhow guurka inuu interesting noqonin yani waxa interestingka ah la iska dhaafa maxad qab waa ra'yigeeni de waa iska ra'yigeeni laakiin waxaan leeyahay guurka interestingka xoogaa yar waa laga ron yahay ana waxaan ku dari lahaa qofba waa qofkiisa hadda qofkaad fahmaysid raadso xoogaa qofaad ka age weyn tahay hadday gabadhan la hadlayaa ma ogtahay waxaa fiican ninka ragga ah inuu ma aragtay maasha allah uu noqon karo nin maxaa la yidhahdaa naftaada alla ilahay kaa weyn gu'ba ha kaa weynaado sanadaha kaa weynaado kaasoo kale guurso waayo ninka markuu kaa yaryahay gabdhihii walaalay waxaa lagu dilay dacaayad way iska dhiban yihiin iska masaakiinta ma ogtahay waxaa ka siiya badan in gabdhihii naftirkooda ay gabdho kala dacaayadaynayaan ee iyagii u daabwan yihiin gabdhihii yaryaraayna odayaallo waaweyn oo dhali kara maasha allah loo dhisaayo qaarkood ee wax walba rabitaankooda ku dhacanah gabadha walaasheeda hadda ninka haddii ay ka weyn tahay asiga lama soo qasbin asaa doortay ma ogtaa gabadhi wax horta ceeba kuma sugno oo maxaa yeelay nebiga adii joo guursaday laakiin anaga soomaalidan dhaqankeena xaskaan naagta markay nin ka yar guursato waxaa waaye wow waa gabadhii waa reeraa lagu qaadaa dagaal baa lagu qaadaa ha si fiican marka waxaan barnaamijkeeni maanta waxaan leeyahay intaasuu noogu egyahay falaaqeyntii yareede maaragtay guurka danta ku saabsan marka waxaan leeyahay shukri aad iyo aad umahadsan tahay dadkana daawanaya aad ay umahadsan tihiin like subscribe share noogu dadaalay tiimka nawaal janaalkeeda oo baay way cusub tahay soo dhaweeya haddee subscribe-tana roob uga dhiga janaalka jazaak allah khair